noloshu micno kuma lahan kaliya in lixdaada lixaad taam ay ku noqoto oo aadan garan nimcada aad ku haysato, balse qiimaha iyo muunada noloshu ay leedahay waxa weeyaan in fakarkaadu uu hirgalo. haddaba dunidan aynu dul saarannahay waxaa ku nool dad aanu lixdooda lixaad taam ahayn, balse kaga karti badan kana hormaray xagga iyo waliba fakarka iyo waxqabsiga kuwa kale lixaadkoodu taamka u yahay. haddaba waxaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa waxa aad ka taqaano naafadii caanka ka noqotay dunida ee ahayd pilot ama duuliye. magaceedu waa Jessica Cox. waxay dhalatay bishii Febraayo sanadkii 1983 waxayna ku dhalatay Arizona ee dalka Mareykanka. waxayna noqotay qofkii ugu horeeyay ee dunida ee gacmaha naafo ka ah duuliyana diyaarad noqda ama pilot iyada oo markaasi lugaheeda u adeegsanaysa. naafada gacmaha waa mid ay ku dhalatay, laakiin taasi kumay keenin niyad jab. waxa ay ka qalin jabisay oo heerkii waxbarasho jaamacadeed goobtii ay ku dhalatay Arizona sanadkii 2005 iyada oo ka baratay cilmiga psychology ama cilmiga nafsiga iyo isgaarsiinta. ayana sidoo kale ku sameysay daraasayn. waxa ayna halkaasi noqotay mid waxbarashada hadafkii ay kala hid ka gaadhay oo heerka ay maanta joogto ay ka caawisay. waxa kale oo ay kombiyuutarka oo aad adiga daawanaya muuqaalkani ee gacantaada u adeegsanaya iyadu ay ku garaacda lugaheeda iyadoo 25 xaraf garaacda daqiiqadiiba. waxaase laga yaabaa adiga oo gacmahaaga adeegsanaya in hal daqiiqo iska badaaya 25 xaraf aad garaacdo, marnaba hayna ku suurto galayn hal daqiiqa gudaheed in aad 10 ilaa 15 aad garaacdo. aan sii socdo oo hadalka yaanu kugu daalin. sanadka markuu ahaa 2005 ayay duulisay dayuuradii u horeysay oo ahayd kuwa mishiinka keliya leh, laakiin bishii October 10 sanadkii 2008 ayaa la siiyay shahaadada duuliyanimada kadib markii ay 3 sano oo tababar duuliyanimo dhameysatay. waqtigan waxay duulisaa dayuuradaha noocyadooda kala gedisan iyadoo dhulka ka fogaata 10,000 oo feet. waxayna muujisay in aan naafadu ahayn wax ka reebaya nolosha kana dhigaya mid fashilantay oo aayatiin iyo noloshuba ka quusatay. waxa ay qaadatay shahaado jaamacadeed mar kale maadada la yiraahdo Science in Psychology. waxaana sanadkii 2012 la siiyay abaalmarinta dhiirigelinta dumarka ee dalka Mareykanka. haddaba daawade, adigu kuma fakartay haddii aad sidan oo kale noqon lahayd in wadada ay gabadhaasi qaaday aad qaado? isla taa jawaabteedu aan hore kuu siiye. haddaynu nahay Soomaali, waxa inta badan fakarkeenu uu yahay qof aan lixdiisa lixaad dhamaystirnayn in aanu maanta noloshu guul ka gaarayn, laakiin naxariista Eebbe ayaa ah mid aan laga quusan. waa tan uu rabbigeenu ku yidhi kitaabka munazalka ah: laa taqniduu min raxmatillah.